gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe ayaa mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye u soo jeediyay inay raacaan xeerka xisbigooda si aanu u sii kordhin khilaafku inay u isku horjeedno xisbiyada iyo dawladda isku horjeedeen markaa wax isku jeesay xisbigii xukunka hayay marka waxaan ku jecelahay madaxweynuhu dhaqso u yimaadaan jecelahay arintan kulmiyada si nidaamkeed gudoomiye soo xeerku la raaca xeer baa isku jira Faysal Cali Waraabe oo warramay Honkebel ayaa dhinaca kale dawladda Itoobiya ku hambaliyay sida ay Soomaaliland uga shaqeysay arrimaha Sultan Wabar waxaanu taasi u diray dad dhawaan ku dhintay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaan kala jecelahay inaan taaniyo dawladda Itoobiya iyaduna talaabo ka qaaday in magaalada Wabar iyo koox la socday waxaan kala iyadana doonaynaa inaan taasiyo dadka ku dhintay labadii weerarkii uu qoray barasaabka iyo weerarkii magaalada ku bada ku dhimatay arrimahaasna waan rool banka ciyaar madaxweyne ku xigeenka laba jeer baan u tagay anigu deema kuma faanna dad baa meel baan soo ka dhigay propaganda si fiican baan u soconaa shariifta waan soo maray sidoo kale Faysal Cali Waraabe ayaa dawladaha hoose ee Soomaaliland ku eedeeyay in ay u sameeysan yihiin cunista dhulka hase yeeshee ay ka gaabiyeen wax qabadkii loo soo doortay magaalooyinka gudaafad bay soo baxeen annagii soo dooranayna accountable noomaha dawladdiina waxa leeyahay waan soo doorto accountable ma magac cid alle maanta cid dawladda hoose accountable shaqana waxay ka bartaan dhul soo loo cuno marka waxaan u baahanahay najcadan cunaaye Honkebel TV Hargeysa.